wararkii imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ay ku goobteen cabdiqaadir nidaamiye iyo sharma boy feeraana ay ka garaaceen abtidon another one titi cadde. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hero is back. kusoo dhawaada titi cadde channel. meel walba waa dunida ka joogtahay si walba muuqaalkayga idin soo gaari doono. waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeeda. haddii aad ku cusub tahay youtube channelkan ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhaada channelka gambaleelka yarkaa furato, videogana like saarto. aad iyo aadaan u mahadsantihiin. intaasoo dhanna ma ahan wax lacag, waa free, waa bilaash, sida caadadii dhaqankeedna. kusoo dhawaada muuqaal cusub, weliba waa muuqaal xiise leh, waa muuqaal cusub, waa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ka soo baxay. intaan barnaamijka u gudagelin, waxaan kaa codsanayaa inaad booqato janalka Dhanane Media. Dhanane Media waxaa kugu soo dhaweyn doono gudoomiyaha janalkaas oo ah abwaan Xanafi Xaaji Maxamuud. abwaanka uu ka istaahilaan booqatid janalkiisana subscribe dhaadid, ilaan wax lacaga ma ahan, taageer oo garab qabo hanka iyo himilada uu ka leeyahay youtube-kana kusoo dhaweey. waa shakhsi u baahan dhiirigelin, dhankaaga ka qayb qaado dhiirigelinta. kusoo dhawaada muuqaalka faahfaahintiisa. sidaan wada ogsoonnahay youtube-leeda magaalada muqdisho ayaa waxaa soo dhexgalay duufaan la yiraahdo lacag. lacagtaas ayaa youtube-leeda magaalada muqdisho iyagoo hanqaltaagaya waxaa ka soo gaaraysa dhibaatooyin iyo ceebo fara badan. sidaan wada ogsoonnahay qof la yiraahdo qadro, inta badan hadda soomaalidu ay ku magac barteen maamo qadro, laakiinse maamo magacaas uma qalanto, maadaama ay dhalinyaro soomaaliyeed maalin walba ay madaxa isku gelinayso, ay isku dirayso, qaarkood ay dhibaato isgaarsiiyeen, heer janal dhan strike copyright loogu dhufto madaxeeda uu gaaray. marka sidaa darteed ma qaadi karto xilka ah maamo, ee maanta laga bilaabo magac shakhsiyan aan u saarayo ama aan u bixinayo ayaa jiro oo ah qadro duumo dejis. qadro duumo dejis siday usoo dhexgashay youtube-leeda soomaaliyeed waxaa dhashay isqabqabsi badan ilaa iyo heer janal weyn oo caan ah oo la wada yaqaanay oo lacag badan soo saarayay laga saaray hawada, ayadoo gacan weyn ka geysatay in janalkaasi hawada laga saaro durdur media group. kadib dugaal media ayay kusoo biirtay, ayay dagaalkeeda ka waday. abaal media janal la yiraahdo ayay waxay u furtay nidaamiye iyo abtidon. kadib way isku boodeen oo waa lagu heshiin waayey hab sami u socodka janalkaas. kadib way ka soo goosatay, waxay tiraahday waa leegu caasiyey, ilmahaas way caasiyeen, saas waaye, kaamiradeeda laga soo qaado, xooleyga laga keeno, dayax oo asiguna markaasi dana gaara ku qabay. ilaan soomaalida intaa ka socotaa, dayax ayaa asigana mashruucaasi markaasi buunbuuninayay oo ka waalayay qadro duumo dejis. kadib waxaa haddana qoorta mar kale isgeliyey qadro duumo dejis iyo ninkii buunbuuninaya ee ahaa dayax xaaji degdeg. kadib liilife ayay u dhacday oo qandaraas cusub ka saxiixatay, ayadoo u geysay wiil la yiraahdo cabdisamed oo ka soo baxay nolosha darbijiifnimada. kadib muddo ayaa waxaa haddana dagaal fooda isgeliyey oo maamulkeeda iyo hurinteeda ay lahayd iyo gacanka geesashadeeda iyo ku bixinta dhaqaalaha dagaalkaasi qadro duumo dejis. liilife iyo dayaxweersha markay qoorta isku galeen, dayax oo aad arrinkaa uga xanaaqay ayaa wuxuu weeraray janalka liilife asagoo ku dacweeyey youtube-ka. kadibna waxaa lagu dhuftay liilife copyright strike wax la yiraahdo. kadib liilife iyo dayax ayaa mar kale ku heshiiyey saaxadda youtube-ka. kadibna qadro iyo liilife ayaa haddana qoorta mar kale isgeliyey. liilife ayaa waxaa laga soo wareejiyey wiilkii marka hore loo dhiibay, waxaana loo furay haddana janal la yiraahdo midnimo. ugu dambeyn maanta waxaa soo baxaysa in haddana ay la heshiisay abaal media, nidaamiye iyo abtidon. kadib maxaa dhacay? qadro duumo dejis oo ciyaaraha lagu yaqaanay iyo mar kale sifaheeda kubadda khiyaanada ah ay la soo dhexgashay abaal media. labadii qofood ee saaxiibada ahaa marna walaaloobay ee isla socday oo nolosha isla qaybsanayay, biyo iyo rooti isla cunayay,
ayay soo dhex gashay saakayna way kala dhaqaajisay oo way kala waday ilaa horaa waxaa loo yidhi gazamalle samaa mangaralle lacagta cirka ayay wadda ka furtaa marka khadra duumadajis oo adeegsanaysa lacagta dalka ingiriiska ayaa waxa ay sida roobka oo kale ugu dirtay cabduqaadir nidaamiye waxay tiri ninkaa kala tuur oo ka saar janalka sidiisa badan maba arki kariyo waan ku walaacay kadib nidaamiye ayaa waxaa la sheegayaa inuu abtidoon feer ku boobsiiyey sharma boyna oo ula tegay kadibna uu abtidoon lugihiisii kaga soo baxsaday halkaa oo ay ku noolaayeen nidaamiye iyo abtidoon ayaa wuxuu u dacwooday baa la leeyahay saldhig magaalada muqdisho ku yaalo kadibna wuxuu sheegay in nidaamiye uu ka xoogayo qalab janalkiisa uu ku isticmaalaya kaameradii iyo nalkii iyo wixii kadib nidaamiye ayaa loogu yeeray saldhigga kadib nidaamiye ayaa tagay wuxuu yidhi qalabkan ninkaa shaqo kuma lahan qoftii gaday khadra duumadajis ayaa joogto marka khadra duumadajis ayaan wacaynaa kadib ayadaana kala saari doonto okay baa la yidhi markaa baa khadra duumadajis la wacay khadra duumadajis waxay tiri nidaamiyaan u gaday anigu alaabtan laakiinse ninkan shaqaalow ahaa ha kula shaqeeyaan dhahay hadday ku heshii waayeenna nidaamiyaa iskale alaabtiisa ninkaana iridda ha dhaafo sidaas ayuu ninkii abtidoon ahaa duurkiisi ku galay kadib wuxuu la xiriiray ama xiriir uu la soomeeyey caawiyaha magaalada muqdisho dayax xaaji degdeg dayax ayaa nidaam oo soo waca abtidoon isigoo oonaya oo dhahay tolla ayay maanta maalinteedii ma aha shalay markaan dhoosha ka qoslayay ma aha arinku maanta cirka uu ku jiraa youtubekii abaalmeediya ahaa fareegi uu ka baxay gacanta kuma haayo waa laygu awood sheegtay waa kaay dayax ayaa hadda garabka u ritay dushana saaranaya oo leh anigaa u furaya abtidoon channel la yidhaahdo abtidoon official anaana soo dhaweynaya kaamirana anaa cindag ka ah anaa caawinaya khadra duumadajisay adiga iyo ammaantaada iyo buunbuunintaada meeshaasay kusoo gabagaboobaysaa laakiinse khadro waa qofma khadro waxaa la sheegayaa inay ku nooshahay dalka ingiriiska uuna qabo nin ka soo jeedo dalka jamaica neger ayaa khadra qabo oo ku baashaalaya jajabsanayana kadibna ayadana way ka qaadaysaa baa la yidhi lacagtay saas ugu guraysaa kadibna ayadana waxay ka samaynaysaa xamar bubulishitaa ama cambaxnimo ama barasho hor leh waa qof wejigeeda aan la arkin mar kasto ay la hadlayso shakhsiga ay la shaqaysa rabto waxay u soo fadhiisataa baa la yidhi ayadoo indha shareerka qabta ma rabto in wejigeeda cidna ay aragto sababtoo ah waxaa ilaa iyo hadda la haynin sawirkeeda saxda ah ee wejiga khadra duumadajis inkastoo lahaayo dhowr sawir oo indhashareer ayadoo wadato oo kala duwan la helay laakiin ayadoo oo loo isticmaalay screenshoot sidaan u malaynayo laakiinse khadro wejigeeda ma ogolo in la arko waxay xirataa indhashareer sababtuna anigu ma garan karo iyo cidda ay ka dhuumanayso iyo cidda ay ka baxsanayso marka khadro way waalaysaa youtubeleeda magaalada muqdisho ayadoo ku waalaysaa lacag ay ku shaqaysay ranto ama ribo kadib markii ay isdhaafiso howlaha bicmushtarada inta badan ah ribana waxaa la yidhi waa xaaraantaas ayaynu ku daldalaysaa oo dhalinyarada soomaaliyeed midba maray ululaysaa waxay leedahay 500 qaado dee ninkaas ku bood 500 qaado hebel caay hadda waxaa la sheegayaa inay $400 nidaamiye u soo dirtay si uu u jijibiyo abtidoon saakay wax ma hayo gacmihiisu way maran yihiin haddii aa shalay ku ogeed nin abaalmeediya ka kheekheeliya maanta waa maana alto gacanta kor u taag ayay maraysaa khadra duumadajis waxaan ku leeyahay haddii ay codkeega ku soo gaaro war dhalinyarada soomaaliyeed faraha ka qaad ha isku dilin magaalada muqdisho ku nool ayagaa kuleel jooga maarsaa la joogaa way kulushahay magaalada muqdisho xilligan oo kale
وحليقي برفك كشدنا يا حليقي برفك كشدنا وايه يوتيوب كدنكي سكور اكسو 8 ورشدود او برف فرو ابريل اي مارسو برفكاس ايا waxaad ka sameyn kartaa lacag badan qadro duuma dajis ciyaalka Soomaaliyeed hooyo uma tiiday waa dhibaateysay duumooy ka daa ciyaarta فيديو أنا كسو gabagabeynaya haddii aad videoga ka hesho like share comment la wadaag asxaabtan iyo kulantideena dambe waa tii tacadoo idin